تعالى وبركاته وأنا ببدأ وضيعان دلعانتي بملك السبعينتي دعبين مديك سو قارسو أمنتو waxay taagantii waqtigan hawada idin soo marin jirnay ruuxii naga soo gaaray dalka gudihiisa daafaca caalamka warka caawiya caalamkan waxa uu diyaaraa hadii Allah wada loo ogolaado anigoo aan shaad cabdi dhamac qodobada warkeena ugu doorkaroona waxaa ka mid ah qadar oo dad guraysa dadkii ku xidhnaa Kaabul khilaafkii siyaasadeed ee ka aloosnaa maalmihii ugu dambeeyay Soomaaliya maxaa dhacay 12 bishii sagaalaad 2001 maanta oo kale waa tahay daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorkaro imkii ahaatana u diyaar garoobo qodobadaas iyo qodobo kala faahfaahsan qadar oo dad guraysa dadkii ku xidhnaa Kaabul warkaasi oo faahfaahsan waxay noo haysaa wariyay kan aadan qoslay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar ayay gaareen in ka badan 100 qof oo badan qoysas haysta dhalashada dalal kala duwan kuwaas oo ku xanibnaa caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul duulimaadkan oo ah kii ugu horeeyay oo caalami ah oo ka soo baxa magaalada Kabul ayaa yimid kadib markii Qatar gacan ka siisay Taalibaanka in dib loo furo madaarka Kabul oo uu burbur soo gaaray saraakiil amni iyo kuwa socdaalka oo ka socda Qatar ayaa hadda gacanta ku haya madaarka Kabul kuwaas oo dib u shaqo geliyay taawarka diyaaradaha laga hago iyo terminalka magaalada Kabul ayay sidoo kale soo gaareen duulimaadyo deeq raashin ah oo halkaasi la geeyay xilli qaramada midoobay ay ka digayso hoos u dhaca dhaqaalaha dalkaasi iyo cunto yarida ka jirta magaalooyinka waaweyn Kiran Aadan Cabdulle Moran 24 TV Kabul khilaafkii siyaasadeed ee ka aloosnaa maalmihii ugu dambeeyay Soomaaliya warkaasi oo faahfaahsan waxay noo haysaa wariyay Naciim Axmed Maxamed waxaa tan iyo shalay degan xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho kadib dadaalo dhexdhexaadin oo la isugu soo dhaweynayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa laga soo waramayaa inay u taagan yihiin dejinta xiisadda siyaasadeed balse ilaa hadda ma cadda natiijada ay ka gaareen dhexdhexaadinta ay wadaan khilaafka u dhaxeeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sii xogeystay kadib markii uu madaxweynuhu wareegto ku magacaabay taliyihii shaqo joojinta lagu sameeyay Fahad Yaasiin oo uu ka dhigay la taliyaha amniga qaranka ra'iisul wasaaraha oo ka jawaabay go'aanka madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu inay yihiin kuwa lagu carqaladeynayo in si dhameystir ah looga gungaaro kiiska Ikraan Tahliil Faarax waxa hadal hayn xoogan ka dhalatay go'aankii uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xilka uga qaaday wasiirka amniga gudaha tagadaas oo uu magacaabay siyaasi kale balse madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay go'aanka ra'iisul wasaare Roble oo ku magacaabay wasiirka cusub sidoo kale Xasan Xundube ayaa ku adkaystay inuu wali yahay wasiirka amniga gudaha dhanka kale madowga musharaxiinta mucaaridka ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ay ku taageersan yihiin cadaalad u helidda Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay'adda sirdoonka dhawaana loo shaaciyay inay dhimatay waa Naciim Axmed Maxamed ee Moran 24 TV maxaa dhacay 12 bishii sagaalaad 2001 maanta oo kale maalin Salaasaa 12 Sebtembar 2001 ragis miidaamiye ayaa xoog kula wareegay diyaarado kuwa rakaabka ah oo ay Mareykanku lahaayeen waxayna diyaaradahaasi ku dhufteen laba daarood oo dhaadheer oo ku yaalay dalka New York halkaas oo kumanaan qof ay ku dhinteen weerarkaasi ayaa wali ah kii ugu xumaa ee qarniyadan dhaca ma ahan Mareykanka oo kaliya balse caalamka oo idil 4 diyaaradood oo kuwa rakaabka ah oo marayay bariga Mareykanka ayaa waxa afduubtay kadib waxaa loo adeegsaday sida gantaalo waaweyn oo la hago si ay ugu dhacaan dhismayaasha taariikhiga ah ee New York iyo Washington laba ka mid ah diyaaradahaasi ayaa lagu dhuftay daarihii mataanaha ahaa ee ganacsiga ee ku yaalay bartamaha New York diyaaradda koowaad ayaa ku dhacday daarta dhanka waqooyi xigta saacadu markay ahayd 8:46 waqtiga New York tan labaad ayaa lagu burburiyay daarta dhanka koonfureed xigta saacadu markay ahayd 9:03 dhismayaasha ayaa waxaa qabsaday dab waxaana ku xanimay dadkii saarnaa dabaqyada sare qiiq ayaana isqabsaday guud ah wax ka yar 2 saacadood ayaa labadii dabaq ee 110 biyaana ka koobnaa ku burbureen kuna basbeeleen diyaaradii saddexaad ayaa abaara 9:37 ku burburtay dhanka galbeed ee wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagon kuna taala banaanka magaalada caasimadda ah ee Washington diyaaradda afraad ayaa abaara 10:03 ku burburtay dhul banaan ah oo ku yaala Pennsylvania
kadib markii rakaabka diyaaraddu ay wax iska caabin ah sameeyeen. Waxaana la rumaysan yahay in ragga wax afduubtay ay doonayeen in ay weeraraan dhismaha Capitol ee Washington ku yaala. Dhammaan 2977 qof oo aysan ku jirin 19 qof ee diyaaradda afduubtay ayaa ku naf waayay. Dadkaasi intooda badanna waxa ay ku dhinteen New York. Dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa 4 diyaaradood oo 246 qof ahaa ayaa ku dhintay. Daarihii mataanaha ahaana waxaa ku dhintay 2606 qof. Xarunta Pentagon waxaa ku dhintay 125 qof. Qofkii ugu da'da yar ee ku geeriyooday weeraradaasi waxay ahayd gabar 2 jir ah oo la oran jiray Christine Hanson, taasi oo mid ka mid ah diyaaradahaasi kula geeriyootay waalidkeed, Peter iyo Sue. Qofkii ugu da'da weynaa wuxuu ahaa Robert Norton oo 82 jir ahaa, kaasi oo diyaarad kale la saarnaa xaaskiisa oo ay aroos u socdeen. Markii diyaaradii koowaad ay qaraxday, dad lagu qiyaasay 17,400 ayaa ku jiray gudaha dhismahaasi. Daartii xigtay dhanka waqooyi qofna kama badbaadin dadkii ku jiray dabaqyadii ka sarreeyay halka ay ku dhacday diyaaraddu, balse daartii koonfureed waxaa dabaqyadii sare ka badbaaday 18 qof. Dadka weeraradaasi ku dhintay ayaa kasoo kala jeeday 77 dal. Waxaa sidoo kale ku dhintay 441 qof oo kasoo jeeday New York. Warda Muuse Cismaan, Mahuraan 24 TV, Hargeysa. waa tahay daawadayaal intaas waxaan ku saafmeeraynaa war wixii naga soo gaadhay dalka gudihiisa daafaha caalamka. warku waxay la socodsiinaysaa anigu aan Nashaad Cabdiraxmaan Nashaad Barati. warku wuxuu si toos ah idinka imanay telefishinka Mahuraan 24 TV studio magaalada Hargeysa. intaan ku kulmi doono baahinta xigta aniga iyo asxaabtii kala qayb qaadatay tabinta diyaarinta warku waxaan idinkaga tagnaa sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.